Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waxaa idin rajeynayaa maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan meel walba adduunka joogtaan. Just waxaan rabaa inaan idin sheego insha Allah ama idin soo xasuusiyo biyaha sidee muhiim u yihiin, biyaha sidee waxne ama qofne uga maarmin. Biyaha waa waxa ugu wanaagsan oo loo baahan yahay. At the same time biyaha waxa weeye waxa problem kasto solve gareeyo oo xaliyo. Problem kasto jiro biyaha way xaliyaan. Biyaha hadane cajiib, biyaha waxay sameeyaan wax walba ku shubtid ama meel kasto galisid way caawiyaan oo sidee problemka u solve gareeyaan oo kale waxa adi arabtid ay noqdaan. Tusaale, hada biyaha caano ku shubtid caanay noqdaan. Hada biyaha cabitaan ku shubtid cabitaan bay noqdaan. Haddii biyaha shaah ama coffee ama qaxwo intaba mid kamid ah ku shubtid sidoo kale noqdaan. Taas waxay ku tusinaysaa biyaha in problem kasta xaliyaan, at the same time xaalad kasta ay ku jiraan ay la qabsadaan ayaki oo wali isbedelaynin aad isku bedel laakiin solution keenayo. So waxaan kala jeedaa taas, nolosha sideedaba it has good and bad. wax wanaagsan iyo wax xun labadaba way leedahay. Qof ka buuxo ama ka dhameystiran ma jiro labadaba. So xaaladana waa roller coaster oo kale, noloshu marna kor bay aadaa marna hoos. So basically dad badana igala soo xiriira oo dhaha please talk about some of the issues. Markale insha Allah ka hadli doona, laakiin I wanted to say biyaha waa khibrad badan ku jirta biyaha. So there's a lot of things that we can learn from biyaha. Wax badan aan ka baran karnaa biyaha oo kale. So xaalad difficult markaa ku jirtid noqo biyaha oo kale. Sababtoo ah biyaha xaalad kasta way ku adapt gareeyaan, way la qabsadaan, balse completely ma isbedelaan, laakiin still sidoodii bay ahaadaan ayagoo wixii xalinayo. So adiga oo bini'aadanka waxa weeye xaalad kasta ku jirtid, problem kasta ku jirtid, think waxa wanaagsan si u fakar, waxa u wanaagsan uga fakar, xusuusnawna walwalka iyo walaaca iyo inaad ka hadashid maanta oo dhan wax xal ma ahan. Laakiin waxa xal ah inaad Ilaahay la tashatid oo tukatid, Ilaahay ka baridid waxa rabtid, ka bacdina adiga fakartid waxa adiga rabtid aad ogtahay. Dad badan waxaa jira ogeen waxa ay rabaan ayaka. Marka qasab waaye, waana muhiim inaad ogtahay waxa aad rabtid. Ay ku cad yihiin hubtid, waliba hubtid 100%. Ka bacdina weyseysatid, Ilaahay weydiisatid hadduu khayr kugu jiro, hadduu khayr kugu jirina iska daysid. Because sometimes waxaa jira waxa moodno inay khayr noogu jiraan, laakiin khayr noogu jirin. Waxa moodno aan jecelnahay oo laakiin khayr noogu jirin. So the best waxa intii waqti ka lumi lahaa waxaad jeceshahay laakiin Ilaahay kugu talagalin inaad heshid ama khayr kugu jirin. So the best is inaad dhahdo Ilaahu adaa og waxaan inuu khayr iigu jiro ama ii wanaagsan yahay, ii soo dedeji hadduu khayr iigu jiro iigu wanaagsan yahay. Haddii kalena Ilaahu dareenkayga iyo maskaxdayda ka saar. So basically insha Allah biyaha tusaalaha noo noqdaan. Insha Allah waa sii wada hadli doonaa mar kale. Insha Allah dadkii emailada ii soo diray ma idin iloobin. Insha Allah topigyada iga codsateen waa ka soo hadli doonaa mar kale. Fursad fiican hayo. Waa mahadsantiin dhammaantiin. Waa inoo mar kale insha Allah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum.